السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام أصحاب تمال والبقدوني آك جوجتان كسود هذا channelka الترحين إيه سلمان مركلة إيه فيديو جينا maanta wuxuu ku saabsan yahay iskuulka ayaan joogaa. Iskuulka ayaa liiga invite gareeyay ama liigu casuumay. Sababaha liigu casuumayna waxay tahay first quarter oo sanadka hadda bilowday rubiciisa hore. Cunugaaga wuxuu shaqaystay waxaa ka mid ah shahaadooyinka taqdiirin ah meesha uu ka wanaagsanay, meesha uu ka fokas gareynayay ayay sheegaysaa. Marka sanadkiiba 4 quarter ayaa jiro. Quarter walbo waa lagu casuumaa saa u ogaato cunugaaga meelaha uu ka fiican yahay iyo meelaha uu ka daciifsan yahay. Sida meelaha uu ka daciifsan yahay ugu shaqaysid. Hadda waxaan arkaynaa Abdiraxiin lawaca waa isla arkaynaa kadib waa kamilaynaa. Abdirahim Sheikh Osman. Saa isla wada aragnayba dhammaan ilmo walba intaas ku joogaan waxay ku joogaan grade 3, grade 4, grade 5 waa joogaan. Cunug walba hal ayaa loo soo wacaa. Marka cunug ilmaa jiraan qaarkooda 5 heleen. Horta 5 wax hele maba arkinba. Hal gabaraa heshay. Qaarkood waxay helayaan 3, qaarkood waxay helayaan 4, qaarkood waxay helayaan 2, qaarkood 1, qaarna maba helayaanba. Marka waxaa badan inta oo waxba aan helaynin badan oo lagu sasawaayo fiiriyaa warkay oo lagu sasawaayo shahaado oo music ah sidii oo ay u niyijabin ay u qalbi jabin wax la'aan loo dirin hal shahaado. Marka qaarkoodana waa bala diraa wax la'aan la diraa. Waa kala jeclaba xataa shahaadada music qarab oo qiimo ku dhisnaan ayaga laakiin agtooda wax weyn ay ka tahay. Waa malqusiinay. Marka asxaabta waa ka daawasho wacan. Maclimadan iyo maclinkan last year igaarkayga u ahaayeen last year grade 4 markuu ahay ayay u ahaayeen. Marka iska soo qaatay xasuus Abdiraxiin macalimiyaashiis. Marka macalin walbo galaas walbo grade 1 ku jira grade 3 grade 4 grade 5 macalimiintiis qof walbo uu soo istaagaa uu soo sharaxa wuxuu qabsaday wuxuu suubiyay wuxuu wacaa wuxuu cunug walbo wuxuu qurxo ku fiicnay ayuu sheegayaa bas iyo طبعا cunug meesha uu ka daciifsan yahay waxaa ka garanaysaa ma lagu sheegay kaas waxa lagu sheegaa gooni meeting la sameynaa meesha aday macalimiinta meetingkaas ayaa lagu sheegaa meesha uu ku xun yahay. Laakiin hadda inta waxaa ka garanaysaa cunuga meel walba uu ka daciifsan yahay ama xun yahay akhlaaqdiisa ama edebtiisa xun tahay shahaado dhan ma helay wax taqdiirin dhan ma helay intaasaaba kugu filan. Marka alxamdulillah anaga 3 mar ayaa nala wacay Abdiraxiin maasha Allah tookadii horena 5 ayuu keenay. Marka mar walba waxa waaye nasiib waaye laakiin first quarter waaye waa arkaynaa 3 quarter kala noo dhiman waa dadaalena ilaa noo darsado. cunug walba la wacaa hooyooyinka joogaan qaarkood ayeeyadooda joogto hooyadii aabihii shaqay jiraan ad waa la buuxaa meesha ilmahan dhan waalidyaashooda waa joogaan. hal gabaraa 5 taba la wacay 5 mar la wacay
first quarterna la joogaa. taas oo kale waxa waaye hooyadii aabaheeda macalimiin ah, hooyadii aabaheeda jaamac kasoo baxeen ya, marka labada dhinaca lagu shubaa. anagana ilaaha noo maqan alxamdulilah rabbil caalamiin. qaybtii labaad oo Cabdiraxiin la wacaane iyadana waa isla arkeynaa. cunug walba markii la wacayo wallaahi farxadiisa lama koobi karo, indhahay taagtaagayaan dhammaantooda. waxaa la sugooyin intii magacooda laga yeerinayo ku dhahay waa ku kufayaan ku dhahay. maxaa u malaysa markuu magacooda la yeerinayo qalbiga ka dhaawacmayaan. alxamdulilah. waa la soo gaaray waqtigeena, waa la soo gaaray doorkeena oon sugeyna, haddaa la soo gaaray. Abdirahim Sheikh Osman. waa kaya asxaabta saa wada arkoosaan maasha allah. shahaadooyinka oo sharafta iyo qiimaha ilmaha darajada korka ugu qaadayso waatana. marka ilmaha in lagu dadaalo aad iyo aad ay u fiican tahay, inkastoo ay dhib badan tahay dhinaca waxbarashada marka la gaaro oo guriga sida ula tacaamushin. laanno ilmaha waxbarashada aad ay u jecleen dhinaca waxbarashada markaa oo gurixiisa ku buushgareynayso ilmaha badankooda ma jeclo. asxaabta warka aan idinku dheereenina videogeena intaasaan kusoo koobaynaa insha allah. ilaa video dambe aan ku kulmi doono next Salmaan ayaa ku xigi doona insha allah. asalaamu calaykum. There's news.